Ma aysan ogolaan in magaceeda iyo muuqaalkeeda loo adeegsado baraha bulshada, balse waxay ogolaatay in sheekadeeda la wadaagto bulshada si ay gabdhaha kale ugu dhicin dhibaato la mid ah midii iyada qabsaday. Gabadhu waxay ka soo baxday gurigooda si adeeg uga soo iibiso magaalada. Waxay soo istaagtay mid ka mid ah isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho si halkaasi gaari uga raacdo. Iyadoo gaariga sugaysa ayaa loo joojiyay gaari yar oo nooca raaxada. Nin aysan ilaa hadda ka siin wejigiisa amba isa sixi karin ayaa ku yidhi, aan ku sii qaado halkeed rabtaa. Waxay u soo dhaqaaqday dhanka iyo gaarida, iyadoo daaqadda u istaagtay ninka si ay ula hadasho. Gabadha markaas ayaa ugu dambeysay kala garashada iyo doorashada waxay rabto. Sida ay sheegtay, waxay noqotay qof wixii loo sheegaba tiraahda haye. Waxaa la geeyey guri sida ay sheegtay. Wuxuu ahaa guri cidlaa oo aan cid kale joogin. Gabadhu waxay bilowday inay u dhaqanto sida haweeney joogta guriga lagu qabo, ninkan ula macaamisho sida inuu yahay saygeeda. Muddo 3 cisho ah amba maalin ayaa noloshaasi ku jirtay. Muddadaasi waxay tiri, maan awoodi karin inaan telefoonkeyga qabto, inaan xiriir la sameeyo ehelkeyga. Waxaan ahaa qof ninka wuxuu dhaho oo keliya yeesha ama maqasha. Ma sixi karin guriga aan joogay halka uu ku yaalay, mana awoodi karin inaan ka baxo una baxo bannaanka. Waxaan si sax ah wax u kala gartay marka laga soo dejiyay ex control Afgooye, weliba kolkaan cagaha dhulka dhigay. Waxaan soo raacay bajaaj. Waxaan dhahay, waxaad i geysaa gurigeenna oo ku yaalla mid ka mid ah xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir. Intaan waddada ku sii jiray, waxaa i soo wacay lambaro badan oo reerkeyga ah. Waxaan garan waayay si aan reerkeyga wax ugu sheego, wixii igu dhacayna aan u bandhigo. Waxay igu dhiirrigeliyeen dadka qaar inaan sheego. Ugu dambeyntii waan u sheegay reerkeyga waxa igu dhacay. Wayna aamini waayeen, xitaa waxay u qaateen in aan dhintay maadaama ay 3 maalin ay waayeen. Dhibka jiro waxa uu yahay, ma aqoonsan karo qofka waxaasi igu sameeyay iyo halkaan ka heli karo. Gabadha reerkeena waxay bilaabeen inay isbitaal i geeyaan ayay tiri si lay baaro. Nasiib wanaag waan caafimaad qabaa, laakiin maskaxdayda waxaa ka guuxay wixii igu dhacay. Ugu dambeyn waxaa la go'aamiyey in quraan la i saaro si maskaxdayda u degto una hilmaamto dhibaatadii ku dhacday. Waxay tiri, waxaan gabdhaha uga digayaa inaysan ku dhicin taydoo kale, ayna ka feejignaadaan dhibaatadan soo gaarto oo kale, gaar ahaan gabdhaha inta badan gaadiidka aysan garanayn waddada ka raaca. Waa suurtagal ninkii sidaan aniga ii galay in uu gabdho kale sidaan hore ugu soo galay amba iminka uu doonayo in dhibaatadaas oo kala geeyo. Lama oga weli gabadha ninka sidaa yeelay waxa uu adeegsaday. Dadka qaarkiis ayaana aragtiyo kala duwan arrintan ka dhiibtay. Waana dhacdo cusub oo ku soo korortay magaalada Muqdisho, cabsi badanna ku beeraysa gabdhaha Soomaaliyeed. Dhacdadan waxaa qortay wariyaha Nasriin Maxamed Ibraahim, waxaan idinla socodsiinayay wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. Waxaana sheekooyinkan iyo sheekooyin kaleba aad ka heli kartaa barka aan YouTube-ka ku leeyahay ee Gacal Ayman.